السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo waa habeenimo Arbaca oo ay Khamiis soo galayso taariikhduna waxay ku beegantahay 28 May sanadka 2025 waxaynu ku soo aruurinaa barnaamijka habeenimo wararkii soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn waa huba inaad si weyn uga faa'iideysan doontaan macluumaadyo iyo warar aad u xiiso badan oo aan ku soo gudbiyay barnaamijkeygii galabnimo iyo kii subaxnimo labadaba inta daawatayna way ku mahadsan yihiin inta kalena waxaan rajaynayaa iyaguna inay daawan doonaan macluumaadkaas qodobada caawa wararka aan idinku hayo waxaa ka mid ah saacadihii la soo dhaafay waxaa si weyn loo hadalhayay in heshiis uu wado Mareykanka Xamaas ay sheegtay inay ogolaatay Israa'iilna ay diidan tahay haddaba warbaahinta Carabta qaarkood ayaa goordhow waxay heleen xogta ku saabsan in 3 qodob kaliya la isku diiday 3 qodob haddii la isku waafaqo in heshiiska markaa la saxiixi doono haddaba 3 qodob oo la isku hayo oo Israa'iil iyo Xamaas isku hayaan waan idin faahfaahinayaa waxa soo kale aan idin hayaa Al-Qassam oo goordhow war soo saartay sheegtayna in galabta ay koox ka tirsan ciidanka Israa'iiliyiinta nagta uga saartay magaalada Gaza qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaanu ku eegi doonaa dawlado waaweyn oo ku jira midowga Yurub ayaa u ololeynaya in qaramada midoobay ay dhaqsi u ogolaato in Falastiin ay xubin buuxda ka noqoto golaha ammaanka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay haddaba qodobadaas ayaynu barnaamijkeena caawa ku faahfaahinaynaa dhammaantood waa warar cusub oo soo kordhay intaynu kala maqnayn intaan ku jirno wax warar ah oo soo kordha haddii jiraan waan idinla socodsiin doonaa waqti wanaagsan mar kale asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena habeenimo waa habeenimo Arbaca ah oo Khamiis ay soo galayso waxaynu ku bilaabaynaa shalay ayay soo bilaabatay ilaa maanta waxaa la waday inuu jiro heshiis dhex maray Xamaas iyo Mareykan haddaba saacada ka hor Xamaas waxay sheegtay inay Mareykanka heshiis la gaartay waliba Witkoff heshiiskaasuna uu yahay mid lagu soo gabagabaynayo dagaalka Israa'iilna ay ka baxayso Gaza oo fiirsada war official ah oo Xamaas ka soo baxay waay Mareykankii war ma sheegin masaaridii war ma sheegin qadar war ma sheegin Israa'iil marka waxay leedahay waxa Xamaas ay ogolaatay waa diidnaa Xamaas waxa ay ogoshay anaga waa diidna waa inaan marka cadaynaa haddaba marka warbaahintii waxay bilaabeen inay wax baaraan galgal la sameeyo waxaa la soo ogaaday in heshiiska uu jiro laakiin 3 qodob kaliya la isku hayo oo fiirsada heshiisku waa jiraalee hawshu way dhamaanaysaa laakiin 3 qodob la isku hayaa haddaba marka aan idin tuso telefishinka Al-Arabiya ayaa goordhow qoray warbixin uu leeyahay warbixin aynu helnay waxay sheegaysaa in 3 qodob uu yahay khilaafka u dhaxeeya Xamaas iyo Israa'iil macnaha 3 qodob kaliya ayaa la isku hayaa haddaba qodobka koowaad waxa ay sheegaysaa jaridda ama telefishinka Al-Arabiya bogiisa lagu qoray uu sheegayaa cadadka ama tirada maalmaha xabad joojinta horta waa la isku hayaa Xamaas waxay leedahay 9 maalmood horta inay baashu ka bilaabato dadka iyagu 3 bilood inay nastaan dhaawacooda daweystaan raashin fara badan u galo 9 waaye Israa'iilna waxay rabtaa 60 maalmood in xabad joojinta marka hore ku bilaabato marka waxay leedahay Al-Arabiya khilaafkaas waa mid khilaafka labaad ee la isku hayo waxay tahay aaliyatul ifraaj macnaha habka maxaabiista loo sii deynayana waa la isku khilaafsan yahay haddaba nuqdada koowaad waxaa la leeyahay Xamaas waxay doonaysaa isbuuca ugu horeeya inay sii deyso 5 nool halka isbuuca ugu dambeeyana ay 5 kale sii deyn doonto haddaba marka Israa'iil waxay doonaysaa 10 kaba in la sii daayo isbuuca ugu horeeya taasna waxaa leeyahay khilaaf aad u daran ayaa ka taagan arinta ugu weyn marka Al-Arabiya waxay leedahay qodobka ugu weyn wuxuu yahay الضمانات
oo markaa ku saabsan damaanad qaada loo baahan yahay heshiis kastoo Israa'iil la galo way ka baxaysaa marka damaanad qaadka ay rabto Xamaas muxuu yahay Xamaas waxay doonaysaa in uu saxiixa gacantiisa ku saxiixo heshiiska المبعوث الأمريكي نيكا إرجيجا مريكان كا ستيف ويتكوف لليهاي إنه إساقو قعنتيسا كس صحيحو iyadoo markaa ay goobjoog noqonayaan saxaafadda oo mu'tamar saxafi la sameeyo ama shir saxaafadeed la sameeyo oo markaa arinka lagu soo bandhigayo qodobadii lagu heshiiyay miiska la saarayo oo markaa hawshaas sida ay ku soconayso oo Mareykanka isaga uu gacantiisa inuu ku saxiixo ay tahay hadhow hadii heshiiska laga baxana in Mareykanka uu ka baxayo Israa'iil ma aamineen ilaahay marka dhanka kale marka waxa la sheegayaa إسرائيل إني أريتها ديدن تهاي إسرائيل وحيرتها بهالهوسة أو قد بصيرها إن مركاسدي مركي هورا لسمين جري لسميو حنوما لأننا وافهم سد حدا قضب عن صوهلنا إليهن ورباهين تعربتها إليهن وحيابها وقوة وين يلسكو هايو مركا وانا سد قضب مهمة مركا ولي فاهين مركا لما هايو إسرائيل وحبضان ما فاهين يسو مريكا وحبضان ما فاهين يان عربتي كلا دحدحادياشا wax badan faahfaahinayaan waxa kaliya xogta laga helay waa Xamaas oo leh heshiisa la gaaray anaga Witkoff Israa'iil dhiman ayada u taala heshiiskeenuna waliba waxa saldhig u ah Israa'iilna ka baxayso Gaza xabad joojin daa'iman la galayo sidii marxaladii la rabaa la maro marka hore 9 maalmood hal la maro kadib maamul sidii loo dhisi lahaa hal maro laakiin waxa mabda'i asaas u ah heshiiska arikaas waa waxaan waligeena raadinaynay إسرائيل وحلها شكاس مجرد مريكان كي ورلقا معي مركا وحي يردن مركا هذا وركاسو ويسكود الاحترام كل وحان فيلا يهدي الله يدمو ساعدها صوص عدو ويكلا عدان دوران معناها وحبا دينا عفول الدوران قضبك هالكا سيكا يقود بينا قضبك كلا برنامجك أي نكوفا فاهلنا وحي نقون دورا القسام وحي شيغيسا ساعده لصور عفي إني مركا إسهلين إياغا إيو ciidamo ka tirsan kuwa Israa'iiliyiinta hadaba waxa leeyahay Markava gantaalkii garabka laga ganayay waa adeegtay muxuu ahaa Al-Yaasiin Markava ayuu gubay kuwa guri ku jiray nagta laga saaray hadaba saacadii la soo dhaafay waxa leeyahay weerar yar oo kooban ayaa inta dhacay ayaan markii lagu dubtaalay marka nimankan waxa leeyahay waa iska gacan galeen maalmahan markay soo dhaqaaqaanba nagta laga saaraa marka aan idin soo war goordhow Al-Jazeera ay qortay waxa leeyahay Al-Qassam waxay baahisay video ay leedahay waxa lagu bartilmaameedsaday ciidanka Israa'iiliyiinta ah waxaana loo bixiyay hawlgalkaasi xijaaratu Daawud alirada ama dhagaxii Daawud nabi Daawud dhagaxiis hadaba marka kataa'ibul Qassam waxay leeyihiin waxaynu bartilmaameedsanay ciidan Israa'iiliyiina kuwaasoo ku sugnaa guri تانجي iyo Markava ahna waxaan la dhacanay Al-Yaasiin 105 deegaanka Bayt Ilaahiya ayaanu isagana ku helnay ayay leeyihiin marka tafaasiil badan oo inta ka baxsan laga ma hayo marka sheekadu waxa leeyahay weerarkaas dhacay waxaasay sheegteen nimankan la leeyahay Al-Qassam waayay wali waxaynu ku jirnaa wararkii ugu dambeeyay Gaza waxaynu galaynaa qadar yar oo xayisiisa kadibna waxaynu u gudbaynaa arin ku saabsan Yurubiyankii oo doonaya in degdeg loo aqoonsado Falastiin xubin joogtaan ay ka noqoto golaha loo dhan yahay qaramada midoobay si wanaagsan marka la asxaabay meel kasto aad joogtaan waxaynu maraynaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena habeennimo hadaba qodobadu way iska kooban yihiin wararkii soo dhacay waaye laakiin barnaamijkii galabta aad ayuu u xiiso badan yahay qodobo aad muhiim ah ku jira iyo kii subaxnimo hadaad daawan waa soo daawanaysaa hadaba barnaamijkan marka qodobka ugu dambeeya aynu soo qaadanayno wararka ugu waaweyn ee soo kordhay kamida dawlado waaweyn oo Yurub ah ayaa war wada jira soo saaray ay leeyihiin qaramada midoobay waa inay degdeg u aqoonsataa Falastiin hadaba marka aan idin tuso telefishinka Al-Jazeera wuxuu leeyahay dawlado Yurub ah ayaa ku baaqaya in ay loo ogolaado Falastiin inay xubin kaamil ah ay ka noqoto golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay dawladahaas waxa kamid ah leeyahay Spain iyo Ireland Slovenia iyo Norway
waxay soo saareen war murtiyeed wada jira ayay soo saareen war saxaafadeed waxay sheegeen in markaa ictiraafka Falastiin uu yahay tallaabo hore loo qaaday waxayna fulinaysaa in xalka laba dawladood uu yahay midka hadda waxa socda lagu xallin karo waxay ugu baaqeen in la aqbalo oo la ogolaado Falastiin inay markaa xubin dhameystiran ka noqoto golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay marka Norway iyo Spain iyo maaragtay Slovenia iyo Norway kulligood hore waa u aqoonsadeen Falastiin dawladda u aqoonsadeen laakiin ololay ku jiraan oo ah in golaha loo dhan yahay qaramada midoobay maaragtay iyaguna inay aqoonsadaan oo xubintooda kaamil xubin dhameystiran ay Falastiin ku yeelato golaha qaramada midoobay taasoo ka dhigan markaa in dawladaha qaramada midoobay ku jira oo dhan ay dawlad u aqoonsadeen Falastiin kulligoodna ay markaa sidii dawlad camal ula macaamilayaan hadda qaar ayaa aqoonsaday dawladahan hadda Yurubiyanka way aqoonsadeen hore waxay u sheegeen inay aqoonsadeen Spain iyo Ireland iyo Slovenia iyo maaragtay Norway iyo kulligood way sheegeen dawlado kale ayaa sheegay marka hawshan marka dadaal culus socdo Yurubiyanku marka waxay leeyihiin xalku wuxuu ku jiraa حل الدولتين معناها لبا دولدود فلسطين iyo Israa'iil oo isla degan Israa'iil dadkan dhulka ay ka gumaysanayso dhibaatada ka dhayso laba dawladood dirisa halku saasa warayna hadaan taas la helin waligeed mushkiladan uma dhamaanayso marba qolaa la jabsanayay Falastiin hal la jabsado iyaguna waa soo nasanayeen sidii hadda ay sameeyeen oo kale maalin kala sameyn doonaan marka dhibaatadu waligeed way jiraysaa leeyihiin marka waxay leeyihiin arrinka waa in degdeg wax looga qabtaa qoraalkaana waxay u gudbiyeen golaha qaramada midoobay ee loo dhan yahay dawladaha ku jira oo dhan haddaba dhanka kale waa ogeedeen Faransiiska iyo Sacuudiga iyaguna dadaalo kale wadaan bisha June in iyagana marka hawsha halka la isugu yimaado in New York iyaguna ay ka shaqeeyaan sidii Falastiin ay marka xubin buuxda uga noqon lahayd golaha marka dadaalo fara badan socdaan kasto Israa'iil iyo Mareykanka iyo howlahan iyagu aan la soo marsiin karin oo ay diidan yihiin haddana mar walba waxa leeyahay xalku wuxuu ku jiraa ad-dawlatayn laba dawladood barnaamijkeygii habeenimo waa naga intaa fakar iyo aragti waxa qabtan ugu soo qor qaybta comments-ka iyo fariimaha barnaamijka la gareeyo oo share gareeya ha iloobin inaad daawato barnaamijkeygii galabnimo mowduucyo aad u xiiso badan ku jira ninkii Netanyahu oo si xun loogu ceebaystay maanta xaruntii baarlamaankiisa uu tagay iyo waxyaabihii meesha ka dhacay fadeexadii uu la kulmay wixii oo dhan ayaanu barnaamijka sameynaa galabta kiisaakina qodobo kale oo muhiim ah ku jira inta aan mar kale kulmayno asxaabay meel kasto aad joogtaan nabadgelyo